meydka hadduu dhintay 3 baa raaca meelkiisa raaca camalkiisa raaca ehelkiisa raaca laba way ka soo noqdaan labada ka soo noqota waa ehelkii iyo maalkii waa labada aan dartood ilaahay diintiisa uga tagnay subxaana wa tacaala waqti aan ku baahi badannahay bay naga soo tageen xaasinimadooda waqti aan aad iyo aad ugu baahinimo badannahay bay na soo faaruqeen yaa nala soo harayo nala joogaya camalku waa midkaan maanta dayacnay waa midkaan maanta xumaynay camalkeena aan wanaajisan wallaahi dadkaan intaan qaaraan ka siinay oo aan wax u diraynayna jecel yihiin mar haddaad ahlu meyd noqoto meydka ma la qaaday taleefon loogu soo diraya meydka ma la xabaalaa taleefonna loogu soo dira meydka ma la astura taleefonna loogu soo dira maanta magaca ugu fiican bay ugu soo wacaya magaca ugu fiican bay ugu wacaya magaca ugu qiimo badan bay ugu wacaya berina waxay leeyihiin meydkii ma la qaaday meydkii ma la asturay meydkii alla ma idin mootiyey waxyaaba markaa la mid ah meel laga jecel yahay aan u shaqaysano waa daarta aakhire meel rabbi khayr laga siinay aan u shaqaysano subxaana wa tacaala waa ilaahay agtiisa intaa wixii ka dambeeya waxaa la diyaar garaynayaa labadoodaba in la qaado tii ficlan iyo tii xumayn waayo labadooda waxay wax ku falayaan ma jiro rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam janaasada la degdega hadday ahlu khayr tahayna khayr baad u gelinaysaa hadday shar tahayna waa shar qoraha idinka saaran waad iska dejinaysaa mar walba dedejiya ee qubuuraha dhaqsa markaa iska geeya rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi meydka mar allaala marka dhan ee la sii wado rag baa canaaqdoodii qoorahooda ku qaada hadday naf fiican tahay hadday naf hagaagsan tahay hadday naf ilaahay ka baqday tahay waxay leedahay qadimuuni wariga dedejiya ayuu igeeya iilkeeya qabrigay tamaninaysaa in dhaqso la geeyo wardaartaa dhibka badan oo naxdinta badan oo murugta badan oo cayda badan oo mashaakilka badan oo fitanta badan markuun iga wada qadimuuni idedejiya ayuu qabriga igeeya waa la saalixada waxasaa ku hadlaysa marka la sii wado ee qabriga la dhigo ee xayaatada lagu soo celiyey barsaqa ah laba malag baa u imaanaya waa naf hagaagsan diinta allay ku camal fashay khayrkii wanaagay ku dadaashay rabbi bay ka cabsatay waxaa la weydiinayaa su'aalooyin rabbigaa baa lagu su'aalayaa diintaada lagu weydiinayaa rasuulkaa lagu su'aalayaa sala allahu calayhi wasalam nafta fiican ee qiimaha iyo wanaagga badan waxaa loo soo miidaanayaa sida axaadiista qayb ka mida ay tilmaameen rajul oo la leeyahay ninkaan maxaad ka taqaanaa warkaan ma garanaysaa oo maxaad ka taqaanaa nafsadaa iimaan bay lahayd way xijaabatay khayr bay raacday diinta allay ku socotay tawxiidkay adkaysay waxay leedahay haadaa muxamed kani waa nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam waa muxamed jaa'anaa bilbayinaat آيات عد آيات لديه فأجبناه واتبعناه أجيبني راعي هو محمد صلى الله عليه وسلم نبي شيء ويقول إليس ويا النبي جعل صلى الله عليه وسلم إلي جعش عبان لقدر وحجابي أمر بقارتي إلي جعش عبان لقدر ويقصل صلى الله عليه وسلم إلي جعش عبان لقدر وكرر كهرتي وقدرين أي سميسي نبي محمد وايا كان محمد الله وايا وأنا مركز الله ورنا يا سيحة وحد ساعة وتصالح ونكسر وقفك أراسك سنور دبارك قبرك الرضا واسعنا يا ومرنا يا إلا مد البصر وحلصينا يا وحل الله وحي خيرا وأيكم متيسطي إلا لك كرمان التقيامة حسناتك جنة لفردوس هي خير